iyo cilmi badan baa inoogu jiray dhageysta buu yidhi. فرنسية مسلمة مثقفة ثقافة عالية زوجها داعي إلى الله. gabadha waa gabadh faransiyada oo muslimada oo aqoon leh oo jaamacadahan cilmi almaadiga taqaano wax baratay ninkeeguna waa nin daaciyo dacwada ka shaqeeya. والديها غير مسلمين. laakiin labadeeda waalidiyada muslimiin ma waa gaalo iyadoo ma muslimada. أول جماعة خرجت 40 يوم من فرنسا إلى باكستان. waxay gabadha ku jirtay jaamacadii horeysay ee France ka baxday ilaa iyo Pakistan 40 cisho. كل النساء يقولون ما رأينا مثل مرأة مثلها. dumarka oo dhan waxay yiraahdaan gabadhaas gabadh lamid ah waligay ma nu arkin. ما عندها دقيقة من حياتها تضيعها فيما لا يعني إلا إما دعوة إما تعليما إما تعلما إما ذكرا. حتى النساء إذا كانوا تكلموا في الدنيا وفي قال وقال هي إما تغير كلامهن بالدعوة ولا تقوم لا تجلس معهن. waxay yiraahdaan gabadha waxa laga arkay sifada cajiibka laga arkay waxa kamid ah daqiiqad waqtigeega kamid ah ma la yaani kuma dayacdo ama way cibaadeysanaysaa ama quraan bay akhriyaysaa ama salaad bay tukanaysaa ama waxbarasho ku jirta ama dacwad bay ku jirta xataa dumarka kale oo wax kale ka sheekeynay haddii aragto intay la fadhiisato ay hadalka uga bedelaysayo kalaam diin wali iman bay u bedelaysaa. رجعت من 40 يوم في بيتها مثل المسجد. جعلت مصلى 3 بنات وولدين كل يوم حلقة التعليم في البيت. حتى أولادها وبناتها يعني تربوا على حب الله وحب الرسول. شيء عجبا عجابا. wuxuu afartanki markay ka soo noqotay gurigeyga waxay ku camirtay acmaal bal gurigeyga waxay ka dhigtay sida masaajidka oo kale 3 hablood iyo 2 wiil bay lahayd awqaadii guriga oo dhan waxay ka dhigtay imma salaad imma quraan imma dacwad imma tacliim 24 saac gurigeyga wuxuu noqday guri ku camiran acmaashi nabigeena alayhi salaatu wasalaam. عندها قيام الليل في الليل بين يدي خالق الكائنات تناجي رب العالمين. زوجها يقول أن تقوم تصلي الليل ثم كذلك صباحا تكمل أذكارها مساء قبل النوم تكمل أذكارها دائما مشغولة بطاعة الرحمن. اسمعوا يا إخواني وأخواتي مثال عظيم في هذه المرأة. wuxuu gabadhaasi habeenkiina salaatu leelka ma badhaafi jirin ba saacadaha dambe dhabay ka jirtay quraankeyga dikrigeyga adkaarteeda istighfaarteeda salaada subaxinta la gaadhin bay dhameystiri jirtay. wuxuu gabadhaasi waa gabadh nolosheeduna ku camirtay ilaahay taacadiisa qisad baan iiga sheegay dhageysta buu yidhi. قبل 5 سنوات بالاختصار قبل 5 سنوات أصابها مرض كونسر السرطان عافانا وعافاكم الله. 5 sano ka hor gabadha xanuunka waxa ku dhacay leedahay kansar ayaa ku dhacay jirkeyga sarataan. فالأطباء قالوا خطير انتشر في جسمها. dhakhtaradii waxay yiraahdeen xanuunkan jirkeygii buu ku fiday gabadha waa khatar hadii toole. اسمعوا نادت زوجها قالت يا زوجي قبل أن يأتي الموت نريد نكمل ديني. نريد نكمل ديني يا زوجي. أريد نكمل ديني يا زوجي. ماذا أنت ما عندك دين كامل؟ قالت له لا ما زال موسم الحج. حجي ما حجيت لكي نكمل ديني 5 فرائض 5 ركائز الإسلام. أنا ما حجيت يا زوجي. كيف نموت ونلقى الله بغير حج؟ يا زوجي اعمل معروف خذني إلى بيت الله الحرام. waxay ku tiri markaa ninkeygii waxaan doonayaa intaanan dhiman ajashu aynan iiman inaan diintaydii aan dhammaystirto diin kaamil anigoo le inaan adduunyada ka tago laana arkaan alislaamka xajkaa ka mid a. waxay tiri anigu weli ma xajin mawsimkii xajkana waa la gaadhay waxaan doonayaa oo niyeysanahay inaan ilaahay gurigiisa tago soo xajiye xajkii noo qabanqaabay bay ka tiri markaas. قال يا زوجتي انت مريضة لا تستطيع تتحركي خطير. قالت له يا زوجي الله سيقويني لكي نؤدي موسم الحج. يا زوجي خذني ولا تخاف. markaasuu ku yidhi nawaad bugta adigu oo xanuunka jirkaagiibuu ku fiday ma kici karaysid xajkuna qof caafimaad fiican oo caafimaad ku dhan yahaa ku fiican markaabay tiri ilaahay wuu karaa inuu quwad aan ku xajiyey siiye adigu maaragtaana kaco hawsha xajka ii bilaab ilaahay baa xajka igeenayo xaji siinaye. ذهب زوجها إلى السفارة السعودية. جاء الخبر من المملكة السعودية أن قفل الحج ما بقى يعطوا تأشيرة واحدة مهما كان الشخص لابد. خلاص جاء الخبر من الحكومة نقفل موسم الحج. safaaradii buu tagay baasaboorkeygii iyo kiisii intuu qaaday safaaradii markuu tagay waxaa lagu yidhi xajkii waa la joojiyey khalaas fiisihii xajku waa dhammaaday tiradiina way buuxsantay amarkaasina wuxuu ka yimid boqortooyada waa la qufulo arrintaas way dhammaataa laga yidhi. فرجع أخبرها. اسمعوا إخواني وأخواتي. فلما أخبرها قالت له إن عندي خالق الكائنات عندي مالك الملوك الذي بيده كل شيء. قامت صلت ركعات وقالت يا ربي أنت الفعال لما تريد كل شيء بيدك أنا عندي يقين عليك اللهم سهل لي التأشيرة يا رب العالمين. ما كملت الدعاء إلا من غد جاء الخبر من ملك السعودية قال للسفارة نريد بعض الضيوف يأتون ضيوف عند الملك الدنيا يأتوا يعني تأشيرة من باب الخاص طائرة خاصة مسكن خاص في مكة في المدينة مسكن خاص كل شيء خاص.
وجاء زوجها وهي في القائمة متاع الجماعة ماشيين ضيوف الملك. waxuu ku tiri ninkeegii ilaahay waa qaad markuu yidhi waa la xidhay oo baasaboorkii waan geeyey oo xashki u dhammaaday ayay tihi maybe salaad intay tukatay bay ilaahay baraday tiri ilaahayow aduu awood waxaad leedahay mutlaqa inaad xashka geyso iyaku wax ma hayaan adigaa facaala amarka adigaa iska leh sanadkan waa niyooda xashki inaad tegee ilaahaw xashka igee bay tiri igee gurigaaga ilaahu gee albaabkaaga ayaa furane albaabkii ilaahay bay garaacday deedna amar baa ka yimid xaggii boqortooyada maaragtaan sacuudiga oo la leeyahay waa intaasoo dad ayaa boqorku diyaafad martigelin u sameeyey fiisaha soo siiya diyaarad khaasaa lagu qaadi xashkana meel khaasay leeyihiin muwaasalaad iyo baabuurro khaasay leeyihiin soo qaada gabadhii iyo ninkeegiiba liiskii dadkii markaa diyaafadda boqorka ku jiray ee martiqaadka boqorka ka helay ayay magaceegii iyo magacii ninkeeguba ku soo baxay. توجهت إلى مالك الملوك فالله سخر ملك الدنيا فأعطاها كل شيء بالسهولة. boqorka boqorada ee adduunyada iskale ayay ilaahay taladii isaga u dhiibatoy ilaahay bay bariday ilaahay caza wajal wuxuu soo sakhiray boqorkii sacuudiga deedna magaceegii qaa'imadii wuxuu ku jiray maaragtaana dadkii la xajisiinayay. اسمعوا إخواني وأخواتي كل كلمة في المستقبل لها أثر كبير تحرك الجبال. dhageystay buu haddaba hadallada soo socda kelmad kastoo qisada gabadha ku saabsan taasiir baaliqay nolosheena ku leedahay buu yidhi. زوجها نعرفه معنا في الشورى. زوجها قال لما ذهبت هناك كأن لم يكن بها مرض في السرعة وفي كل الوسائل قامت في كل المناسك إلا ولها نشاط عجيب. wuxuu ninkeegu waa nin saaxiibkaya buu annaka oo ahlu shuuraha naga mid ah oo maalin walba nala jooga isaga xawaashana siinaya wuxuu yidhi mar alli markii aan xashkii tagnay ilaahay caza wajalla gabadhii waxaad moodaa intuu xanuunkii ka qaaday inuu quwadii caafimaad geliyey ilaa xashka ay ka dhamaysanaysa waxa yidhi waa caafimaad qabtay buu yidhi. لما رجعت سقطت في البيت وزاد عليها المرض فأخذوها العملية 7 ساعات في العملية إخواني وأخواتي 7 ساعات في العملية. لما قامت من البنش قال لها زوجها كيف حالك؟ قالت له والله قلبي يكاد يتفجر من النور. لماذا؟ قالت لأن لما بدأ المنش وبدأ العملية رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامي. حبيب الله واقف أمامي رسول الله واقف أمامي. لما انتهيت من العملية والبنش رسول الله ذهب تمنيت نبقى في العملية كذلك. waxau yidhi walaalayaal mar alli markii xashka ka soo noqotay way dhacday markii xashka joogtay xanuunka waa laga qaaday jirhkeygii quwad wuxuu ilaahay geliyey ay acmaashii xashka o dhan ay ku soo dhammaysatay gurigeygii markay ku noqotay way dhacday dhakhtarkuu geeyey waxayba gashay koomaa bay gashay 7 saacadood baa gabadha qalliin dhakhtarradu ay kula jireen oo nafteedu adduunyada ay ka maqnayd walaakiin 7 saacadood kadib markii qalliinkii la dhameeyey naftu ay ku soo noqotay ee suuxdiinkii ay ka soo kacday ayuu ninkeyga ku yidhi iska waran markaasay ku tiri wallaahi waxaan u dhowaaday nuur daraaddeed inaan qarxo waayo 7 saacadood ee qalliinka aan ku maqnaa wejigii nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa ii hor joogoon eegayay bay tihi nuurkiisii ee qalliinku muu ii sii dheeraadaa si aan wejiga nebiga aragtidiisa ugu raaxaysta bay tidhi. تمنيت تبقى في العملية كذلك. waxaan tamaniyey tidhi in camaliyadda qalliinka laygula jiray dhakhtarka in laysii qalaan jeclaada bay tidhi. يا زوجي خذني لبيتي نموت بين أولادي وبناتي خلاص جاء الوقت يا زوجي خذني إلى البيت. waxay tidhi aniga saacaddaydii way dhammaatee iga qaad dhakhtarkan oo ciyaalkayga i dhex gee aqalkayga iyo ubadkayga dhexdooda aan iskaga dhintaa bay tidhi buu yidhi. في ذاك الأسبوع مات يوم السبت ونحن عندنا مشهور أوروبا في بريطانيا. زوجها لابد يمشي معنا. كنا من العادة نمشي يوم الخميس الجمعة في الطريق نوصل بدوس بري يوم الجمعة مساء تبدأ المشورة السبت المشورة يوم الأحد صباحا نرجع. فزوجها لما رآها في سكرات الموت قال أنتم امشوا أنا لا أستطيع لأن زوجتي في سكرات الموت. waxau yidhi markaa usbuucaas waxaan lahayn buu yidhi mashhuuradii Awroba ayaa lagu qabanayay maaragtaan Britaniya Ingiriiska lagu qabanayay waxay ahayd tartiibtuna khamiis baa soconnaa jimcana dariiqan ku sii jirnaa sabti mashhuuradu way bilaabantaa markaa safarkii aan guda galnay ayaa ninkeygii noo yimiday wuxuu yidhi wallaahi gabadhii aad bay u xanuunsan tahay dadul waa sakaraad weeyaan anuu inima raaci karaye ii shuuraya oo ininku sii socday buu yidhi anu kama tegi karaye. اسمعوا إخواني وأخواتي اسمعوا تضحيات الفرنسية المسلمة الجديدة اسمعوا. gabadha Faransiyeed ee muslimadda jadiidada sida diinta ugu hurtay ay diinta ugu tadxiyootay dhageystay buu sheekh. قلت يا زوجي لماذا ما ذهبت المشورة؟ فهو تردد. قالت له عرفت أنك تريد تبقى معي وأنا نموت وأنت بجواري. يا زوجي ليس في فائدة تبقى معي عند موتي فائدة لي عندما تكون خارج ويأتيني ملك الموت. يا زوجي المرأة تحب تموت وزوجها بجوارها نريد نضحي تضحية أخيرة أنت نموت وأنت خارج في سبيل الله حتى الله يعطيني أعلى درجة في الجنة.
markaas ninkeygii ku tiri maxaa ka reebay shuuradii aaway culimadii soo mashhuuradii ma jirto maxaa ku reebay adiga markaasuu daa u sheegay yidhi adigii baa sankaraado waa la reebo adaan ku hadhay markaasay tiri ma waxaad doonaysaa inaan agtaada aan ku dhinto anigu miyaad doonaysaa bay ku tidhi anu waxaan jecelahay tidhi inaad adigoo iga maqan aan dhinto si ilaahay ajar ziyaadaa ii siiyo oo taas adoo iga maqan oon dhintaa ii faa'iido badane la joogaad ila joogteen agtaada ku dhimanayo aniga faa'iide iima leh gabdhuhu waxay jecel yihiin raggooga agtooda inay ku dhintaan laakiin anigu waxaan jecelahay tidhi adoo ilaahay dartii u maqan inaan dhinto naftu ay ga baxdo si aan aakhirkayga noloshayda inta u dambaysana aan diinta ilaahay ugu tadxiyoodo بقاؤك لا يفيدني la joogaad aniga ila joogto waxba iima tarayay ka tidhi لا يفيدني أريد أضحي آخر تضحية قبل خروج روحي intay naftu aniga iga bixin tadxiyadii u dambaysay inaan diinta u huro ayaan jecelahay tidhi ودفعته حتى ركب في الطائرة يوم السبت صباح والتحق بنا oradoo socabay ku tidhi markaasay dabada ka soo kaxaysay sabtidii buu markaa nagaga dabiimiday annagoo joogna Dewsbury oo maaragtaan ingiriisku noogu yimid diyaarad soo raacay أنا كنت حاضر في ذاك اليوم الساعة 10 وصل عندما وصل جاء التليفون زوجتك انتقلت إلى جوار الله رحمها الله فعند ذلك كل من رآه بكى sabtidii 10kii subaxnimo marka uu yag joogay telefoon baa ka daba yimiday oo loo sheego la yiri islaantaadii ilaahay raxmadiisa ku intiqaashay oo islaantaadii adduunyada way ka dhimatay sabiri man Allah ka siya laga yiri waana nag joogay telefoonku markuu soo dhacay ahbaabtii oo dhan way la wada ooyeen buri waa laga naxay buri geeridaas شاور المشايخ يرجعوا فورا في الطائرة يرجع فورا mashaayixdu waxay ugu suureen marka inuu isagu degdeg u diyaarad kale ugu noqdo oo aaska ka qayb galo فيا اخواني الان كلمات الاخيره مهمه جدا فلما جاء اليوم المعلوم في مسجد كبير في إيفري مسجد كبير جدا فوق للنساء والتحت للرجال واتوا بجنازتها في الصندوق والله جميع النساء من فرنسا يعرفونها ويحبونها حضروا بالغرابي مثل الغرابيب السود والرجال كذلك حضروا بالسنه والعمايم والله يا اخواني ذاك اليوم لا انساه قبل الجنازه صلاه الجنازه قبلها كلام الدعوه الى الله بعد الجنازه كلام الدعوه اخذناها الى قبرها قبل دخولها في القبر كان كلام الدعوه كان الدعوه معها تشيع حتى للقبر wuxuu yiri markaas uu soo noqday isagii iyaan soo wada noqonay buu yiri waxaan ka soo gaarnay buu yiri aaskii masaajid weyn oo jaamica ayaa meydkayga la keenay dushana dumarka masjidka buuxiyay hoostana ragga ayaa buuxiyay gabadh muslimada oo daaciyada oo xijaaban oo niqaaban ma joogin wadankaas ilaa janaasadeedii aaskayga waa laga soo wada qayb galay raggii ducaad oo dhan way ka soo qayb galeen gabadhaas waxa cajiibkan ka arkay buu waxa kamida salaat al-janaazi intii lagu tukan bayaan baa la jeediyay salaadii markii laga baxay bayaan baa la jeediyay qabriga markii la dulgeeyay bayaan baa la jeediyay qabrigii markii ciida lagu rabay bayaan baa la jeediyay limaada lana gabadhu daaciyad bay ahayd maydkeegii aaskaygiina dacwad baa ka socotay maalintaana ma iloobi kara buu maalin la iloobi kara maaha اسمعوا الكلمه الاخيره بناتها النساء اخبرنا النساء بنات يضحكنا فرحات مسرورات سالوا امكم ماتت لماذا تضحكنا قال ليس هذا يوم الحزن هذا يوم الفرح لماذا لان اخونا الكبير محمد يوم الجمعه في الليل راها في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينها وعمر بن الخطاب على يسارها والصوت ينادي من السماء هذه من اهل البيت الله اكبر waxa siica ka siica jabada guri dhageysta waa soo khatimay hadalkeen gabadhii ubadkeegii gabdhaha ay dhashay wayba iska ciyaarayaanba dad geeri ku dhacdayba uma ekaba iska qosqoslaan iska farfarxayaan markaas dumarkii waxay ku yiraahdeen hooyadiin baa dhimatay maxaad la murugooneen oo la faraxsatiin waa maalin murugo la geeriyooday weeyaan waxay yiraahdeen habeennimadii jimcihii walaalkaya maxamed ayaa ku manaamay hooyadayo oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga midigu ka joogo عمر بن الخطاب حق بدحو كجوجو سمدنا لقى دواقو لليهي ابلايه هبل واهل البيت النبي كما عليه الصلاه والسلام عملت قليلا واجرت كثيرا هي البيقى بدأت عمل فشوديته وتضحيوتي لكن اجر وين الهي واسيب هذه مسلمه جديده ماذا المسلمات القديمات في جيبوتي في كل مكان ماذا